كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم نبتغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo casharkeeni sideedaad ee koorskeeni PHP for beginners. casharkeenan waxaan kaga hadli doonaa strings. Stringsku waa maxay? Intaanan koodhka u gelin stringsku waxa weeyaan oraah caadiya, hadal caadiya. Marka waxaan soo dhigin casharadeeni hore variables. Variable container buu ahaa wax noo hay, waxaad ku ridato mad kala soo baxday waana bedeli kartay. waxa ku xigay constants ku define ayaa lagu bilaabay. Marka ma bedeli kartid, iyagu variables way ka duwan yihiin, ma bedeli kartid. marka wixii aan bedelayn bad ku kaydsanaysaa sida byda iyo wixii la mid ah. marka aan gudubno aan soo shidano same serverkeeni. hadda waxaan tagaynaa same bank si tagaynaa si aan soo shidno. waxaan tagaynaa same control, double click laba jeer taabo kabacdina uu noo soo baxaya. marka sidaa nooga soo baxa waxaan taabanaa start iyo start. halkeena noo soo dhig. waxaan kala taginaa htdocskeeni. halkan oo noo hay folderkeeni chorus len php. marka kan soo furo koodhkeeni shalay tola constants buu noogu joogay. halka waxaan ku bedelinaa strings. marka koodhkeeni php inta naga masax, intan kalena masaxba. marka koodhkeeni php waa kaas. marka stringska waxa weeyaan horta stringska variable aan bilowno aan ku qorno. waxaan paragraph b baa soo qaado b1. waxaad odhanaysaa marka stringska waxa lagu bilaabaa single colon, single quote ama double quote. labada waa lagu ogolay inaad ku bilowdid single quote oo ah saas ama double quote oo ah saas. marka labada waa lagu ogolay inaad. marka waan soo baranay taasna hadalkii caadiga ahayd. marka aansa student waxaad ka tiraahdaa student who came late intaaba dheh. paragraphkeena labaadna variable 2 baa iska dheh. variable 2 wuxuu noo haynayaa single quote ba kan dheh. marka waxaad tiraahdaa waxaad tiraahdaa student who came late in the class. halka in the class sit last with rock inta matri. marka haddaan idhaahno echo paragraph 1 haddaan idhaahno waxaa noo soo baxaysa intaas noo soo baxaysa. intaas ayaan soo baxay. save garaysano aan soo localhost kiyo chorus marka ku qortid clixi waxa noo soo baxaysa marka folderkeeni htdocs noogu jiray lesson php. marka maxaad halkaad ku aragtaa student who came late, student ardayga soo habsaama marka aan eegan halkan. marka paragraph 1 ma aragtaa plus on odhan karnaa paragraph 2 oo libana korisi $sign paragraph 2. save haddaan idhaahno aan refresh garayno warning none numeric value encountered. marka halkaas waan khaladnay. marka isugeynta waxaan doonaynay inay studentiga kaas aan isku xidhno labadan string. marka wax kastoo ku bilaabma double quote ama single quote waa string. marka waxaan odhanaa student who came late, ardayga soo habsaama in the classka sidii in the last xagga dambe fadhiista with rock isagoo dhagaxo kaloo xagga dambe fadhiista.
marka sidee baan labadan iskugu dhajinaa casharka intaasan maantana baranaa sidee baan iskugu dhajinaa waxa odhanaa variable kalaan bilaabaynaa waxaan idhahnaa combination isku daritaankii marka combination wuxuu noo haynayaa paragraph 1 soo xig marka combinationku muxuu noo haynayaa paragraph 1 variable-ka paragraph 1 b1 wuxuu ahaa student who complete wuxuu la mid yahay combinationkaas imka haddaan idhaahno echo aan idhaahno combination haddaan xidhnaa save garayno aan soo saarano web browserkeeni aan sidan idhaahno student who complete maragta marka isku waxbay combination wuxuu la mid yahay variable-kaasna intaas u noohay marka xodhanna haddana xodhanna combination waxaa odhanna paragraph 1 kan naga saarba noo soo celi kii paragraph marka waxaa odhanna combination dhibic dadkaasi waxa weeyaan ugee weeyaan combination ugee combinationku muxuu noo ahaa markii hore combinationku wuxuu noo ahaa student who complete waxaad u geysaa variable-ka labaad oo b2 ya marka b2 paragraph 2 variable-keenaas oo kana waxaad u geysaa ka marka waan eegi doonaa waxa soo baxaa marka waxaan odhanaysaa echo combination no variable-kan combination inban halka b ban ka inban ka tagnay combination markaas aan eegno haddaan refresh garayno waarkisa student who came late in the class ardayga yimaada xilli dambe galaaska soo habsaama si the last xagga dambe fadhiista withdraw haddaba waxaan sameynay variable baan abuurnay marka single double quote baan ku bilownay oo kusoo xidhnay semicolon baan kusoo xidhnay haddaan semicolon-ka ka tagno wuu xumaanayaa way paragraph 2 variable-ka b2 ayaan isagana string-gaasaan ku dhex qornay labadanba waa string shalay baan soo dhiganay commentiga waxay yihiin commentiga wuxuunbaa lagu sharxaa ama qof kaloo markuu koodhkaaga eego ayuunbuu arkayaa uno wax aad waxa weeyaan commentiyo aad qofu akhrisan karo weeyaan laakiin koodhka kuma dhex jiro marka marmar bay muhiim tahay inaad ku qortid marka halkan ba nooga masaa halkaaba nooga qor waxaa nooga qortaa string way haddaba waxaan sameynay combination way waxaan sameynay combination-kaas waxaan idhi variable-ka koobaad aan noola ekaado combination-ka labaadna dhibicdaasi waxa weeyaan waxay u dhigantay oo kale plus adoo kale u dhigantay ku dar bay ku dhigantay add ay ku dhigantay oo ku dar ayay u dhigantay marka concatenation baa la dhahdaa dhibic marka paragraph 2 marka hodhanna echo variable-keeni waan soo sheegnaa combination oo isku darkaya variable-kaas marka variable-ka markaan sidaa soo sheegno waxaan ku horeysiin karnaa string waxaan odhan karnaaba original paragraph baan odhan karnaaba paragraph ayaan odhan karnaa marka si aan labadan kanoo variable oo noo haya labadaas string labadaas oo isku xidhmay waxaan kusii dari karnaa string kale waxaan doonayna ayaan kusii dari karnaa keliyaata stringi ma qortay concatenation ku soo xidho baalka waxaan ujeedaa udhexaysiin haddaan save garaynaan eegno waxaa noo soo baxay intaas original paragraph student who came late in the class sitting the last withdraw marka waxaan sameynay paragraph-kaas string-kaasaan ku dhex darsanay haddaan sidaa usii kala socnaan save garayno oo aan refresh garayno kaas intaas waxa weeyaan intii aan ku darnay inta nooceed ku bedeli karnaa waxaan doonaa isku dari karnaa isku head laba paragraph
save baan odhanaa haddaan refresh karayno okay isku xidhka laba paragraph student who came late in the class sit in the last with rock wata waxaan kala odhan karnaa PR no kala deji save haddaan idhaahno aan refresh karayno way kala tegayaan paragraphkii intii hore PR taas ayaa noo qabanaysa faa'iidada PR waa inay noo kala dejiso code HTML halkaa waa ku dari kartaa laakiin waa inuu double quote ama single quote ka ku dhex jira meelahaas oo kale iska dhigi kari maysid. Assalaamu calaykum.